Thanks a lot. marka hore inta aan fanaaniinta aan sheegin waxaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo directorka ama composerka programka ama filmka waa Faisal Abdisamad Karate oo isagu nagu sharfay in aynu filmkan ku qabno dalka Kenya. وانا لما هراني حقري وحقوقه وانا لما هراني حقري وحقوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waa salaamantihiin dhammaan aqyaarta ka soo qayb gashay filimkan qiimaha iyo qaayaha leh ee aan ugu talagalnay in aan qaban doono. waxaan si gaar ahaan u salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliyeed gudoomiyaha koowaad ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Maxamed Cumar Dalxa. kadibna furitaanka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kadibna waxaan gali doonaa hawshan iyo informationkan iyo sidii faahfaahin aan kugu siinay jal gudoomiye ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa walaalkayga Faisal oo runtii barnaamijkan qiimaha leh ee fanaaniinta Soomaaliyeed ee Kenya ku sugan igu sharfay inaan kala soo qayb galo munaasabadan oo kullayba loogu sii gogol xaarayo film sida uu horeyna igu sheegay haddana aan kullayba aan codkiisa aan ku wada maqlaynay fanaaniintii Soomaaliyeed ee raaci hore raaci dhexe raaci dambe oo aan loo kala harin kooramku uu dhan yahay bacalwaana oday uu yahay Cabdi Tahliilna uu dhex fadhiyo baadil iyo muslima qaasin oo ayagana safkii dhex ay ahaayeen iyo runtii dhalinyarada kale hadda soo baxday Xamdi oo ku kaayo halkan angle tita ku jiro ma gartay iyo in kale oo runtii wiilkii yaraada dheeraaday oo ina Ciise Boongaha laftirkay markaan tuuran jirin oo garaaci jiray siraad bay runtii ii mareysay siraad markii anaga fanka aan daba ordi jirnay gabadhii runtii ugu yaray dadka hadda meesha fadhiyo ayay ahayd markaan xusuusto anigoo ayada riwaayad dhigaysa walna weyn anna aan arday ahay marka intaan way ka yareed u bixi la soo taagi bay ahayd yani maantana marka ayada xijaabka ay maartay xiran tahay waxaan u maleynayaa dad daax inay ku khaldami doonaan tan tusaalahan waxir aan ka soo qaato macnaha barnaamijkan ama filimkan waxyaalahan ku soo qaadan doono waxaan ku soo qaadan doonaa hooyo kali ah oo nool oo na shaqaynin oo macnaha wadan qurbo joogto ama Yemen ha ahaato ama ha ahaato Kenya hooyadaas ma haysato meel ay ka shaqeyso dhaqaale ma soo galo inka ma haysato waxa laga yaabaa odaygeedina xaajigeedina inay kala tageen waxa laga yaabaa inay haysato 4 ilmood ama 5 ilmood oo yar yar kan ugu yar inuu jiro 2 sano ama 3 sano ilmaha cid ay uga tagto ma laha haddana macnaha markii waa la socotay markii laga yimaado wadamada reer galbeedka ilmaha waxa la geeyaa meel lagu haayo qofkan uu soo shaqeysan karaa laakiin qofkan waxa uu weysan yahay qutulyoonkii maalintii wuxuu cun lahaa hooyadaas waxa laga yaabaa cunugaas inay guri intay uga tagto ay sariirta ama macnaha catiirka ama waxay ku seexato inay macnaha lugta intay uga xirto uga tagto si ay u soo raadiso qutulyoonka maalintaas oo cunayo waa dhibaatooyinka aan filimka macnaha aan ku matali doono ilaahay dukraal noqdo tusaale ahaan markaan ka soo hadlo waxa kale oo kamid ah dadka macnaha dhibaatada hadirtan xeebaha ku dhamaanaya Soomaaliya oo macnaha badda maalin walba ku dhamaanaya Soomaaliya iyo macnaha dhinaca jaceylkana waa muhiim macnaha ay sheegay iyadan inaan ku darno marka Faisal aad baad u mahadsan tahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee halka iskugu keentay horta fikradda uu keenay ninka la yiraahdo Faisal Karate waa horta fikrad wanaagsan waa wiil horta aad u fiican oo jecel ummadda Soomaaliyeed oo rabaa in barnaamijka turjumayo maxay ahayd marxaladaha maanta dhibka nagu dhacay dadkeena Soomaaliyeed oo badda isku ridaayo xabadaha dhibkana haysto annagana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan garab ku siino oo wixii karaamkeena ah aan sameyno fannimadeena waa naasantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye horta
taladu yaraan iyo weynaan midna ma laha waxaa suurooday midkaageena talo u dhaafay ka yar inuu helo waxaa halkaan isugu nimid waa filinna ma aha cayaar duubidiisa qabashadiisa hawshiisa ku celintiisa istaagidiisa xagga u jeeso xagga saas leh halkaa markaad la dhasho haddana saa u soo noqo gacanta taag markaa haddaadan gacanta taagin macnaa filinkii waa xumaanaya bismillaahi raxmaani raxiim horta waa mahadsantihiin kulligiin barnaamijka wiilka walaalkeena la soo qalqaaliyey iyo inteena fanaaniinta oo ka soo qayb gashay kulligeenba waa mahadsannahay muraadka aan leenahayna waa in aan filinkaas qabanno ka turjumaya dhacdooyinkii dalkeenna iyo dadkeenna iyo waxaana diinteenni kulli ku dhacay dhacdooyin ka turjumaya ayay filinkan ku saabsan yahay sida aan maqlayo marka ilaahay ha naga dhigo kuwa ku guulaysta ilaahay kuwa sida ay tahay u matala oo u muujiya ha naga dhigo taasaan ilaahay ka baryaynaa allahuma salli calaa sayidina bismillahi raxmaan raxiim horta dee waxaan marka hore dee mahad ugu celinayaa walaalkeen faysal nin soomaaliyeed oo haddana soomaalinimada aada u jecel wuu ku mahadsan yahay filinkan uu noola yimid waxaan u malayn doonaa hadalna bacalwaan baaba dardaaran dhameeyey insha allah ilaahay waxaan ka baryaa inuu nagu garab galo annagana aan noqono kuwii faysal maaragtay wanaaggu nala soo doontay kuwa guda ilaahay inuu naga yeelo oon dadaalo asalaamu calaykum horta waxa waaye waxaan filayaa hadalkii intii biyo kaba dhibcaan cabdi cali waa sheegay hadalku waa biyo kaba dhibcaan inta la yidhaahdaa macnaha muhiimadda meesha in ihimka la tago intiina cabdi waa sheegay waxaan kaga noqdaa markaan xaqiina ma keenayso intuu sheegay ma la rabo oo biyada fikraddan uu faysal keeno waa fikrad aad iyo aad u macquul ah fikrad qaaliyana ah runtiina ila muuqata filmaanta maanta waqtigan xaadirka loo baahan yahay hadday tahay jiilka soo kacaya ama jiilkan maanta qaangaarka ah ee tiirsteedoodu ay tahay had iyo jeer dooyaha ku tahriibaya ay tahay dhibaatada ugu badan ee ilaa hadda in haysata oo anuu fikrad ahaan aan qabo Soomaaliya dhalinyarta markaad eegto intay xabadu ka dishay iyo inta ay badu ka dishay ay badan tahay hadda intay badu ka dishay bismillahir rahmaanir rahiim الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaa maanta farxadii ah in aanu fanaaniinta Soomaaliyeed kala soo qayb galo xafladaas oo ku saabsanaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo isu xilqaamay inay sameeyaan film Soomaaliyeed oo ku saabsan dhibaatooyinkii xanuunkii iyo mashaakilaadkii weynaa ee 18 sanadood ummadda Soomaaliyeed yacni ku habsatay aad iyo aad ayaanu ugu xanuunsanaynaa wixii la soo maray hase yeeshee wixii la soo maray in la iloobo way fiicnaan lahayd laga qabto tan soo socota qabyaalad maxaan ku keenay su'aasha qaaliga intaad qaadaa dhigtaan qofayga ka keen jawaab qofayga ka keen jawaab ma asanta